aanu markii hore aniga iyo garaadka iyo Suldaan Saleebaan iyo Cumar iyo odayaasha kale nala socday maxamed wagaaleeyo waxaan ugu nimid muhiimadeeda koobaad horta waxa weeye inaanu u ducayno oo Ilaahay uga barino inuu caafimaad siiyo booqashadii uu xaq u lahaa annagana waajibka nagu ahayd weeye ayaan ugu nimid muhiimada koobaad aan ugu nimid waxa weeye in aan u ducayno Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu caafimaadkiisa u soo celiyo runtii waxa weeyaan cali waa oday qaranka iyo ummadda oo dhan meel kasta joogaan qiimo ku leh aniga waxa weeyaan kulay si gaar ah waa abtigay weeyaan run ahaantii aan waliba aad iyo aad saaxiibo u ahayn oo abti kaliya aan ahayn waxa weeyaan Ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu caafimaad siiyo waxaan arkay maalmahan media aan arkay oo la leeyahay de Soomaaliland waajibkeedii kama soo bixine waxaan qabaa cid walba inay waajibkeeda qabsan doonto xukuumaduna way qabsan doontaa oo cali de waajibkiisa way ka qabsan doontaa annaguna waxaan u maleynayaa de intuu abtiga u yahay ku filan ba in cid lagu qayliyo ma aha caafimaadkiisa inta uu abtiga u yahay iyo inta ehelka u abaaba ku filan ba ninka cali sandulle loo wada yaqaan ilaahay caafimaad sareeca siiyo ilaahay caafimaad sareeca siiyo buuqashada aan soo buuqanayna sidaa uu boqorku yidhi waa tu waajiba waa tii la isku lahaa waqtigii aan ogaanay amaan haleelay baan dee soo buuqanay ilaahayna caafimaad ha siiyo maanta waxaanu joognaa annagoo salaadiintii dalka ah gurigii cali maxamed cali sandulle oo xanuunsanaya ilaahay caafimaad ha siiyo waanu soo booqanay sida salaadiintii gooraysa ay sheegtay waa u ducaynaa ilaahay inuu xanuunka ka dulqaado cali corona dhakhtar waa u tagay Djibouti waa u tagay hadeerna diyaar baa loo yahay meel allaale meeshii uu caafimaadkiisa ilaahay baa awood leh uu ku caafimaadayo booqasho bay naga ahayd inaanu soo ducayno mar walba waa la joognaa ilaahay waxaan ka baryaynaa adeer ilaahay inuu caafimaad ku siiyo xanuunka ilaahay ka dulqaado kulli qof waliba dee ilaahay baa og waxa weeye noloshiisa iyo waqtigiisu sida uu noqon doono ilaahay waxaan ka baryaynaa raganimadaadii iyo awoodaadii iyo magacaagii intaba ilaahay nasiib yar kugu soo celiyo insha Allah ta'ala wada caafimaad doontaa